waxay tiri wadankan burburka ah 30 sano ka maqnaa waa soo laabtay sidee ku aamini karaa product wadanka dhexdiisa lagu soo saaray jiray. magacayga waa Faadumo Cabdi Isxaaq waxaan ahay macallimad iskuul waxaan kaloo ahay hal abuure oo soo saartay productigan aan sameeyo waa product la isku cayiliyo mid la isku caateeyo iyo saliidaha timaha noocyadooda kala duwan. iskan waa loo iska shiidnaa oo loogu talagalay dadka jiimka kale aad u isticmaalo oo dadka dhalinyarada jiimka ay u isticmaalaan mask aan sameeyaa maska madaxa oo asagana loogu talagalay in timaha qurux ay noqdaan. maska hadda ku tusay saliidiisi oo ah saliid timaha jilcinaysa madooweynaysa dheereynayso saliidan anoo filinayna tartiib waxay u gaartay Mareykanka ilaa Ingiriiska dad badan aan soo dalbaday productiga ku sheegayay oo weydigeenka ah gabadheedii yarta ah oo caate aheed ay ugu cayishay kadib dadka xaafadda waxay dhaheen macalin Faadumo waa productiga igu horeeyay waa productigan macalin Faadumo waxa u baahanahay productiga la isku cayiliyo sidii productiga waa diyaariyay bacyaa ku shubay dadka xaafadda dhan u geegeynayay maalmaha ka mid ah oo iskuulka imaaday boorsada ku qaadinaa oo garabka markaa ku qaato maamooyinka ka mid ah waxa ku dhahay habar soo dijaabay productigan waxay tiri wadankan burburka ah 30 sano ka maqnaa waa soo laabtay sidee ku aamini karaa product wadanka dhexdiisa lagu soo saaray jiray. maamadii waxaan ku dhahay maamo ilmahaaga macallin u ahay productiga macallimadooda soo saartay soo tijaabi productiga way qaadatay way soo tijaabisay habar ka waran productiga aan dhahay sidee waxay u tiri habar waa u maqsuud halkaas ay ka imaataa. productiga kale oo weight loss ka la isku caateynaa caloosha la iskaga jaraayay productigan falilahi alhamd hal abuurka markaa la imaaday jaamacadda SIU hal abuurka ku soo bandhig lay dhahay barnaamij symposium la dhahay ka qayb qaatay barnaamijkaas markaa ka qayb qaatay dad badan caloosha ugu jaray ilaa hadda dad badan soo dalbada asagana sidaas oo kale tartanaaba ugu soo guuleystabo productiga wuxuu yahay la ima soo wici lahayn dadna ma igu soo xirmi lahayn ilaa hadda waxaa jiro dad mandheer u qaato ad sabab u qaataa jiro dad gobolada u qaataa jiro maasha Allah ani qofkii productiga mar arkaba hore iga soo waca waxyaabaha dhiiri gelinayna ka mid tahay qofka hadii uu cayil uu rabay product lagu cayilinayo natural loo hayaa wax chemicals ma isticmaalayo dad badan oo chemicals isticmaalay ilaa oo renal failure ay ku dhacday aragnay oo macnaha kiliyihii ay fariisteen aragnay saliido kale dibadaana nagala keeni jiray ana ka mid ah dadka ku dhib qabay saliida dibadaha laga keeno dukaamada ka soo gadanayna $7 $8 $10 ka soo baxsanayna timii markaa shan la isdhaad way daadanayaan tan way ugu xumaatay tu kala raadinay mararka qaar suuq markaa wareegaysid aflagaadooyin dadka ay ku geysanayaan way jirtaa laakiin wax ugu badbaadaya waxay tahay هدف iyo hiigsi aa leeyahay kulama hiigsi aa leedahayna marnaba ma fariisanaysid